madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu dambeyn ku hogaamiyay damaciisi weynaa ee uu ku doonayay inuu mar saddexaad talada ku soo noqdo 2028. Dastuurka Mareykanku waxa uu qabaa in laba mar ama term uu madaxweynuhu xilka joogi karo. Ha yeeshee Trump ayaa xogtu warisay in sidii dib loogu doortayba uu dadaalkeeda ku jiray helista dariiq sharci ah oo uu mar kale kursiga isugu sharixi karo. Balse waxa uu maalmo ka hor ugu dambeyn xaqiijiyay inuu ku hogaamiyay doonistaas. Trump ayaa warbaahinta u sheegay Arbacadii dhaweyd waa iska cadahay inaan mar kale la dooran karin. Waxaan u maleynayaa inaan la ii ogolayn sidaasi darteed aysan dhici karin. Ha yeeshee waxa uu ku sii daray waan arki doonaa waxa dhaca, taasoo muujisay inuusan weli si cad uga rajo dhigin. Gudoomiyaha aqalka wakiilada Mareykanka ninka lagu magacaabo Mike Johnson ayaa warbaahintu warisay inuu runta qaraar ah inuusan mar kale tartami karin. Trump uu sheegay isaga la fahantiisa oo midaas xaqiijiyay ayaa yiri But I think the president knows, and he and I have talked about. Trump waxa uu ogyahay inuusan jirin dariiq macquul ah oo uu mar kale ku tartami karo, balse soo noqoshadiisa waa ugu bootayn karaa xisbiga dimuqraadiga ah ayuu hadalkiisa raaciyay. Weedha waa ugu bootayn karaa dimuqraadiyiinta ayuusan Trump ka helin, oo mar la weydiiyay wuxuu yiri uma maleynayo in Johnson sidaas yiri. Warbaahinta Mareykanka ee dhinaca xisbiga bidixda u janjeerta ayaa tabinaysa in dhowrka bilood oo Trump xilka joogo Ameerikaanku qaati ka taagan yihiin halka isagu doonayo inuu mar saddexaad talada ku soo noqdo.